بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين، وبعد. داودياشا قيمها يقايها مدن ميول بوجوكتان وحيدكم السلام من سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. داوديا البرنامج كان عاشق عاوف مرتوية هاي حبي مارج أكاديمي شيخ أحمد جوهري بلالي ولا شين هبة عمر، waxaan markale kusoo dhaweynaya barnaamijka waxaa leeyahay ahlan wasahlan wa marhaban bikum. وعليكم السلام. دونها أخي وما سنتي بارك الله فيك. saada socotaan sheekh axmed iyo walaal hibo 14 bisha February waxaa taariikhda gaalada loogu yeeraa maalinta jacaylka, waxaa loogu yeeraa Valentine's Day, dhinaca luqadda carabiga waxaa lagu yeeraa ciid ulxub. magacyo badan bay leedahay. intaynan iyada u gelin marka hore waxaan inaan ogaano asal ahaan xaggee kasoo jeedaa. insha Allah waxaan ku bilaabaya walaal hibo. tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا جزيلا ولا أحمد. إن runtii waa su'aal muhiim ah oo loo baahan yahay waqtigan xaadirkan joogno inaan laga jawaabo, ummadana lagu celceliyo, loona cadeeyo waxna laga yiraahdo. runtii waxa weeyaan Valentine's Day-ga oo ku beegan 14 bisha February, waxa weeyaan waa maalinta dadka isjecel, dadka wax jecel ay xusaan. waa maalinta maaragtay saad sheegto ciidul xubbigaas oo hadiyada la isku geeyo oo qof walba qofku jeclaa uu soo xasuusto. laakiin waxaan rabnaa wax walba asal buu leeyahay iyo meel uu ka yimiday inaanu noqono asalkiisii oon isla raadino. bal inaan noqono maaha walaalayaal dad ummadda kala dabagala, laakiin dad ciidahooga leh oo maadaragtay waqtiyada wax xusayaan ay u caddahay. diimaha iyo ummadahana waxaa kala geeya oo kala kaxeeyay. nin walba waqtigu wax xuso ayuu leeyahay iyo wax la xuso ayuu leeyahay. marka waxaan la xusayo maanta maxay tahay oo maaragtay 14 bisha ku beegan oo beritoole insha Allah ah, waxa weeyaan waa Valentine's Day-ga. Valentine waxay ka timiday nin wadaad ah oo baadari ah oo magaciisa Valentine's la dhahayay. ninkaasi waqtigii Roomaanku ay aad u cadaadin jireen Kirishtanka ayuu noolaa. marka muxuu sameyn jiray? ninkaasi wuxuu sameyn jiray in dadka Kirishtanka ah ee loo ogoleyn diintooda ee la cadaadinayo buu isku dhisi jiray. wuxuu kaloo sameyn jiray, wuxuu caawin jiray dadka jeelasha ku jira, dadka xiran ee maadaragtay si uun u xabisan ayuu caawin jiray. uu meherin jiray, uu isku meherin jiray. marka wuxuu u dadaali jiray labada qof ee isjecel in ay wada noolaadaan, ay maadaragtay isguursan karaan maadaama la kala ilaalinayo oo la kala celinayay. Roomaankuna waqtigaas aad buu diinta uga soo horjeeday Kirishtanka oo wuxuu ahaa pagan bay ahaayeen Roomaanku waagaas. paganna waxaa laga wadaa waxaanan diin haysan oo maadaragtay waxay doonaan iska caabuda ayay ahaayeen walaalayaal. maadaama ay sidaas tahay, ninkii maxaa ku dhacay? Saint Valentine la yiri intuuna saint noqon, oo saint waxa laga wadaa weli baa laga wadaa dhankooge, intuuna weli uuna noqon ninkii Valentine la dhahayay, maxaa ku dhacay? waxaa ku dhacay in uu maadaragtay Roomaanku ay la dagaalamaan oo ay u cadaadiyaan, ay dib u geystaan, uu soo gaaro heer uu maadaragtay u dhinto. waxa uu aaminsanaa inuu u dhinto ayuu soo gaaray. marka Saint Valentine's wuxuu sameeyay gabadh yar oo wuxuu daweeyay. diinta Kirishtankana waa naqanaayo waxaa weli laga dhigaa baadariga mucjizo laga arko. oo mucjizo marka laga arko ayay waxay yiraahdaan ninkani waa nin weli ah oo magacaas saint ayay siiyaan. ninkii waxaa laga arkay mucjizo ah in uu daaweeyay, uu boogsiiyey, uu maaragtay gabadh qoladii xirtay ninkii xiray gabadhiisii markuu daaweeyay uu maaragtay sidaas u caawiyey ayuu waxay u noqotay mucjizo ayay u noqotay. kadibna wuxuu sameeyay intaana la daldalin oo la dilin ayuu wuxuu u qoray warqad. gabadhiiba warqad u qoray uu ku leeyahay maca salaama, uu ku leeyahay warqadii meesha ugu hooseyso wuxuu ku saxeexay your Valentine. nacam sheekhaagii oo kale camal Valentine oo salaam calaykum camal ah ayuu hoos uga saxeexay.
kadib way isbedeshay xaaladii, way sii socotay. waxaa laga dhigtay maalintaas maalintii jacaylka ayaa laga dhigtay, maalintii dadku isjecel ay maaragtay inay xusaan oo ay maaragtay isa soo ziyaartaan oo ay wax isa siiyaan ayaa caado looga dhigtay. kadib sidii ayay usii socotay walaalayaal, sidii markay usii socotay ay usii kobacday ay usii weynaatay, waxay noqotay in waqtigan la joogo ay isku bedeshay business, ay isku bedeshay businesska isku bedeshana waxa weeyaan runtii kalgacayl iyo jacayl loo qabay St. Valentine looma soo nooleyn, laakiin waxaa loo soo nooleeyay waxa weeyaan waxaa laga arkay il dhaqaale in laga samayn karo, maadaama waxaan tahay wax dareen la xiriira oo laba qof oo isjecel runtii hadiyadiisa siiya marka la yiraahdo aad bay u fududahay oo qof walba qofku jecel yahay wuxuu siisan. laakiin maalin baa loo sameeyay, maalintaaba aad u xusayaan. maalintaasna sida Christmas day ay u samaysteen bay uga dhigteen maalintii dadkii isjeclaa. suuqana waa loo jeedaa maalinta waxa ka dhacaya iyo bilahaas waxa ka dhacaya. walaalayaal dadka marketka ku takhasusay way garanayaan sanadku siduu u idil yahay. Christmaska awal ugu xoog badnaa oo waxa walba la gadan jiray, laakiin waxay dareemeen bilaha kale inay uu baycu uuna sidaas awood u lahayn. marka waxay sameeyeen Easterkii bay sameeyeen, waxay sameeyeen St. Valentine-kii oo maaragtay marka laga yimaado Christmaskii xoogaa in yar la nasto handara inaa wax dib loo gato. marka dadka marketka ku takhasuso way garanayaan waxbaa la gadan peak bay noqon marketku, handara hoos buu u degi, handara waa inaa wax kale loo alifaa, waxaase handara lagu mashquuli, handara hoos buu u dhici, handara wax kalaa la alifayaa. marka alifaadaas waxay dhalisay in maad aragtay sanadkii hore 17.6 bilyan ay gaadhay maad aragtay bayca kasoo gala kambaniyada St. Valentineska. sanadkan la joogana waxay gaadhay 18.6 bilyan, 18.6 bilyan ayay gaadhay marketka. waxaad dareemi karta inuu market huge yahay oo aad u weyn yahay. xataa marketkii industrygii musicgii iyo filmadii iyo Hollywoodkii way dhaafiyeen walaalayaal. waxa weyn waxaan kusoo koobsanayaa in la ogaado waxaan asal ahaan meeshuu ka yimiday iyo sida loo noogu fikirayo iyo sida loo fikirayo oo laakiin aana loo fikirin laba qof oo isjecel. marka waxa loo fikiraya waa market. at the end of the day market baa loo fikiraya. salna waxay ku haysaa taariikhdaas Christianka ee la ogyahay ayay sal ku haysaa. wax aan caado u leenahay maaha. waxa weeyaan Abu Hurayra al-Bukhari waa kii soo wariyay in al-Bukhari waa kii ku jirta xadiiskii ahaa in maad aragtay ummad kasta iyo qowm kastaba ay ciid leeyihiin, ciideynuna ay caddahay ay ka duwan tahay ciidaha ummadaha kale. marka intaasaan kusoo koobsanayaa walaalayaal. bal cilmi ahaan waxaan intana la xusin ha la ogaado meesha uu ka yimiday bil yaqiinna maad aragtay qofku markaa ikhtiyaarkiisa isaga ayay u taallaa. insha allah. wajazaakumullah khayr. wasalaamu calaykum waraxmatullah. جزاك الله خيرا أختي. ولاشين هو أيا آدي آد وبيانسي أصل كمشي كل هاي شيخ أحمد وحن كويديني يا مدام هو نشرتين وحنا أصل كذا هاي أصل عن الإسلام عن كسوت شيدين دينة الإسلام كم حي قبطين عادة كلا تلسوا من قوري أو إنه ما أنت سيدا هذا ولاشين نشرتين أنت أصل عجا إنه كوب حنا ستين تبنك بالليل قيب كم إذا وحوي of course وادتك مسلمين توجدنا يا مرة هنقدان أو الطرفون هنقدان يجوا ولدنا له جعيلك wax fiican Sheekh Ahmed. marka ina diinta maxay ka qabtaa in caadada horta aynu sameeyno insha Allah. تفضل شيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala. marka labaad waxaan aad ugu mahadinaynaa aniga iyo gacalisadayda Hiba Umar martida aad noo tihiin hay'adda Happy Marriage Academy aad caawa aad u tihiin isha caashiq barnaamijka isha caashiqa oo maartay qayb weyn ka qaadanaya wacyigelinta bulshada in la gaarsiiyo. marka Abu Hurayra iyo engineer Cabdinaasir aad baan idinka mahad celinaynaa. barakallahu fiikum. haddaan usoo laamo akhi mas'alada aad bay u mahadsan tahay macluumadeena Hiba runtii asal ahaan meesha ka timid ay noo sheegtay. innaga marka maadaama aan muslimiin nahay caalamul islaamina aan ku noolnahay, caalamu ghayr islaamina aan ku noolnahay, yacna soomaalina aan ka siinahay in aan qaadano dhaqan kale
horta waxa isweydiin la maxaa ka faa'iideyna innaga marka aan muslimiin nahay nebigu inoo sheegay marka uu noolaa sala allahu alay wasalam xadiis saxiixa ayuu wuxuu leeyahay latattabicanna sunana man kana qablakum shibran bishibr walow dakhaluu xujra dabbin ladakhaltumuuh yacna macnaheedu waa maxay waata aan hadda arkay in aan cido kale daba caradayno oo aan waxoodii aan qaadanayno dhib ay yidhahdeen marka wuxuu leeyay nabiga alayhi salaam dadkaasaad raaci doontaan hadday godbahaleed galaan xataa sidaad ugu dayanaysaan baad dabagalaysaan ka dabagalaysaan meeshaas taa macnaheedu waxaa ku jira inkaar yacni diid maa ku jirta in dhaqanaad adigu aad lahayn diin aad adigu lahayn aad qaadatid walidaalika ilahay qur-aanka wuu inoogu sheegayaa wuxuu ina leeyahay laga aqbali maayo dadka diin aan ahayn islaam aan ahayn marka saas daraaddeed inagu maadaama muslimiinna waxaan leenahay laba ciidood ciidda aan leenahay waa ciid al-adxa iyo ciid al-carafa haddii maalin la sheegayo labadaa maalmood ayaa la inoo sheegay dadkeennu marka waxay ku darsadeen diin ahaan marka la fiiriyo dhalashada nebiga in la xuso yani saxaabaduna ma xusin taabiciintuna ma xusin meel lagu xusayna ma jirto inta badan sida oo kale waxyaabaha dadkan aan ugu imanay ay sameeyaan waxaa ka mid a maalan maalinta hooyada mothers day iyo fathers day wixii baa maaragtay maalmo loo sameeyey waxaa daba yaala sida runtii tilmaantaybu waa business oriented ugu dambeyntii in dadka laga shaqaysto marka dadkii laga shaqaysanayay baan annagii aan qayb ka noqonay aslan marka inagu inaan cid kala raacno inkaar baa meeshaa ku jira waa la diiday inooma banaanay inaan waxaan diinteenna ahayn aan diin ka dhigano inooma banaano waxaan sunnaheenna ahayn inaan sunno ka dhigano waxaan dhaqan aan unahayn inaan dhaqan ka dhigano inooma banaano saas daraaddeed yacna diin ahaan haddee muslim baan ahay inaad christan ku labisato sidiis ama ciidda uu dadka christanka ay leeyihiin aada ciid ka dhigato adigu dhinac culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan runtii dadka aan la degannahay ee wada noolaasho inaga dhexeeyaan inaad u tahniyadayso dhib weyn kama jiro oo qofkiiyo maalan ciid christmas leh ama wax inkaas oo kale laakiin in aan anigu valentinekii aan wadinkii casaa iyo hadyadii iyo dharkii aan soo iibsaday iyo in aan anuu u qasdaya niyaddayda maalintaan maanta oo maalintii maaragtay jacaylka aan leeyahay asal ma aha anu meli dad kala iskale imana taalla marka in aan anugu aan ku dhaqmo wuxuu yihi nebigu sida oo kale man tashabaha biqawmin fa huwa minhum marka haddaan isku ekaysiiyo oo aan dhaqamadoodii iyo caadaadkoodii iyo ritualskoodii wuxoodii o dhan haddaan qaato dee iyagaa lamid noqonaya xadiiskaaba ay qabanaya saas daraaddeed waxaan is leeyahay anigu maadaama diinteenna aynan sal ku lahayn asal ay ku lahayn waxaa noo haboon in iska tago بارك الله فيك جزاك الله خير شيخ أحمد الله سبحانه وتعالى حقه بركيه ولا الله وحن جعل الله إنها قادتان وأنا داس أي ولا له إنه سوتشيليين أصل كذا ماشي كتب ولا الهبو أمر عياسي في عنه غير القسي حكم كدين تأنا وحن نوقف صار ولا كشيخ أحمد جوهري وحن ولا لها دمانتي بين كعب سنة أنا عجلدا شير قليسان وصيفة في سن النبي عليه الصلاة والسلام وحي يبلغ عني ولو آية داس ما أنت هذا إنه مقالة حديثة إنه مقالة إنه سيقاس إنه ولا له أنا كره waxaan u mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaala waxaan u mahadcelinayaa walaalahay habi marriage academy oo nagu casuumay barnaamijkan waxaan kaloo u mahadcelinayaa film media iyo injineer cabdinaasir xarago intaynu markaan ku kulmi doono waa maxamed ibraahim cawad asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu